السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي برنامج كيني تلا دكتور وأنا كسو قادن تونو ديجيريدا iyo waxa keena inta ayna guda galin hadii aad ku cusub tahay channelka kamid noqo asxaabta channelka lana wadaaga asxaabtaada barnaamijyada aynu soo dhigno si ay uga faa'iideystaan iyaguna aynu bilowno. Dhiig-yari maxay tahay? qeexid ahaan dhiig-yari goorma dhiig-yari ayaa jirta. Dhiig-yaridu waa marka tirada unugyada dhiigga cascas ay ka yaraadaan sidii caadiga ahayd. Unugyada dhiigga cascas waxay oksijiinta u xambaaraan qaybaha jirka ee kala duwan. marka ay tirada unugyada dhiigga cascas yar yihiin oksijiin yar ayaa soo gasha qaybaha jirka. tanina waxay qofka ka yeeli kartaa mid dareema inuu daalan yahay oo daciif yahay. maxaa keena dhiig-yarida ama maxay tahay asbaabaha lala xiriirin karo dhiig-yarida? sababaha keena inta badan waxaa ka mid ah dhibaatooyin ku yimaada feerada ama birta ku jirta jirkeena oo hoos u dhacda, inaan la cuno cunto ay feeradu ku badan tahay, dhiig ka yimaada afka, hunguriga, caloosha ama xiidmaha, dhiig ka yimaada hoosta haweeneyda ama dhiigbax badan oo caadada ka yimaada, dhallaanka yar 1 sano ee caba caanaha lo'da ama caanaha ariga, dhallaanka lagu qoodiyo caano boore aan lahayn feedho ama iron qofba sida uu yaqaano. calaamadaha lagu garto qofka maxaa ka mid ah? haddii aad qabtid wax calaamadahan ka mid ah, dhakhtarkaaga la xiriir ama booqo dhakhtar. daciif ama daal maqaarkaaga, faruuryaha, ciridka, indhaha, dhinacyadooda, cidiyaha ama calaacalaha gacmaha oo cadaan noqda ama midab beela, indhaha oo madoobaada ama mugdi noqda markaad istaagto, wareer ama miyir beelid, neefsashada oo kugu gaabata, wadnaha oo si degdeg ah kugu garaacma, dhallaanka iyo caruurtu si gaabis u kora. daryeelkaaga muxuu noqon karaa? dhakhtarkaagu wuxuu baari doonaa si uu ogaado sababaha dhiig-yarida kugu keenay. daaweynta waxaa ku jira cunidda cuntooyin caafimaad leh oo ka mid yihiin fruit, khudrad, rooti, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, hilib iyo kalluun. inaad cunto cuntooyin ay irontu ku badan tahay sida khudaarta, caleenta, hilibka guduudan, lowska iyo digirta. dhakhtarka waxaa laga yaabaa inuu doonayo inuu la kulmo cunto qore si lagugu qorsheeyo cuntooyin caafimaad leh. inaad qaadato iron kordhiye, cabidda 6 ilaa 8 koob oo cabitaano ah maalin walba. in lagu siiyo sidoo kale haddii aad u baahato dhiig ama dhiig lagu shubo haddii ay gaadho xaaladaadu mid aad dhiig u baahan tahay. isla markaaba dhakhtartag haddii aad wareeraysid markaad istaagto, ay neefsashadu ay kugu adag tahay ama cadaadis feerihii aad dareemayso. intaasaan kusoo koobi lahayn barnaamijkeennii maanta. aad baad mahadsantihiin.